dowladda Itoobiya waxa la sheegay in gudaha waddankaasi ay ka abuurtay dood ah aqoonsiga lagala laabto dalka Eritrea oo Itoobiya ka madax bannaanaaday sanadkii 1993 aqoon-yahanna iyo dad kale saameyn kula siyaasadda oo ka agdhow ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa doodani si xawliya uga wada gudaha dalkaasi waxaana ay sheegayaan in dawladdii uu hogaaminayay Mele Zenawi markii ay aqoonsatay Eritrea aanay ahayn mid la doortay oo aan haysanin sharciyad rasmi ah kastoo xukuumadda Mele Zenawi ay waddankaasi matalaysay isla markaasina ay la macaamilaysay adduunyada inteeda kale loona aqoonsanaa dawladda rasmiga ah ee Itoobiya abuuridda doodanna waxay ku fidaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada Itoobiya qaar ka mid waxay soo bandhigayaan taariikh muujinaya magaalada dekada ee Casab aanay ka mid ahayn dhulka Eritrea ra'iisul wasaare Abiy Ahmed toddobaadkii hore waxa uu sheegay inay lama huraan tahay in Itoobiya bad ay yeelato wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel oo ka jawaabay aqoonsiga Itoobiya ay kala noqonaysa dalkiisa ayaa waxa uu sheegay in marka horeba aqoonsiga Eritrea aan uu ku iman hadiyad oo Itoobiya ay garanaysa sidii uu ku yimi labadani wadan xiisada colaadeed ee u dhaxaysa waa mid sii kordhaysay sanadkii ugu dambeeyay waxaana ay kala taageerayaan jabhado hubaysan oo ka soo horjeeda labada dawladood